Mulkiilaha Adani Group ee Gautam Adani ayaa hantidiisu ka badatay mulkiilaha LVMH ee Mr. Bernard Arnault Jimcihii, taasoo Mr. Adani ka dhigtay ninka labaad ee dunida ugu hantida badan, taasoo ay hantidiisu dhan tahay $155 bilyan, sida lagu sheegay wargeyska Forbes ee ka baahiya hantiilayaasha ama taajiriinta ugu badan dunida. Hal maalin ayuuna ku galay kaalinta labaad kadib markii ay hantidiisu korodhay $5.2 bilyan oo dhiganta 3.49 boqolkiiba. Arnault oo hadda ka hooseeya Adani $300 milyan ayaa gaaray kaalinta saddexaad. Adani waxa uu sidoo kale dhaafay mulkiilaha Amazon Jeff Bezos, kaasoo hantidiisa ay hoos u dhacday $2.3 bilyan ama 1.49 boqolkiiba, kana dhigtay hantidiisa $149.7 bilyan. Mulkiilaha Tesla Elon Musk ayaa isagu weli kaalinta koowaad ku jira, isagoo haysta hanti dhan $273.5 bilyan. Adani ayaa waxa uu leeyahay 6 shirkadood oo waaweyn oo intooda badan ka shaqeeya dekedaha, garoomada diyaaradaha, tamarta cagaaran iyo sidoo kale xarumaha kaydinta macluumaadka iyo qaar kale oo badan. Adani waxa uu noqday ninka Aasiya ugu taajirsan bishii Febraayo ee sanadkii hore. Ganacsadaha ayaa kaalinta koowaad ee Aasiya kala baxay nin kale oo Hindi ah oo bilyaneer ah oo loo yaqaan Mukesh Ambani, kaasi oo hadda hantidiisu tahay $93.4 bilyan, kuna jira kaalinta 8 ee 10 qof ee ugu taajirsan adduunka. Saamiga Adani ayaa shalay gaadhay meel aad u sareysa inta la ogyahay taariikhda, taasi oo halkii saami ama halkii share la siinayay $3,749 oo u dhiganta $46, taasoo ah labanlaab intii uu ahaa sanadkii ka horreeyay. Sidoo kale waxa uu labanlaab kordhay saamiga tamarta, iyaduna fursado fiican laga arkayay sanadkan. Adani waxa uu sidoo kale kor u qaaday saamiga warshadiisa sibidhka, taasi oo ka dhigtay shirkadda labaad ee ugu weyn soo saarista sibidhka ee dalka Hindiya. Intan ayaynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta. Inta muuqaalkan mid lamid ah ku wada kulmi doono, anaga ilaawna muuqaalka like noo saarto, hadda channelka cusub tahayna subscribe noo saar. Fi amaan ilaahi, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.